garaadada ugaasyada suldaamada iyo dhammaan hogaamintooda yaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maanta shir ku yeeshay magaalada Jijia ee caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka soo saaray baaqay dhammaan u dirayaan muwaadiniinta deegaanka Soomaalida Itoobiya mucaarad iyo muxaafidba inay ka soo qayb galaan shirweyne ballaaran oo lagu qaban doono magaalada Jijia 5 bisha fooda inagu soo haysay August shirkaas oo laga wada tashanayo danaha shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya waxayna odayaal dhaqameedku sheegeen in shirkan ay iyagu iskood u soo abaabuleen ulana dan leeyihiin sidii meesha looga saari lahaa madmadowga jira loona dardargelin lahaa horumarka nabadgelyada iyo midnimada ummadda deegaanka Soomaalida Itoobiya cid kastana ay ku soo bandhigi doonto fikirkeeda waxaana baaqan soo jeediyay garaad kulmiye garaad maxamed oo ay wehelinayeen dhammaan hogaamin dhaqameedka deegaanka oo ku hadlaya codka shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlaya magaca hoggaanka dhaqanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugaasyada garaadada wabarrada salaadiinta anoo magacooda ku hadlaya waxaan xaggan baaq shirweyne wada tashiga iyo midaynta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aan ugu baaqaynaa dhammaan aqoon-yahanka waxgaradka siyaasiyiinta ururada magac walbay sitaan shakhsiyaadka tabashada leh dhammaantiin waxaan idinku baaqaynaa in gogosha nabadeed aan ku baaqnay maanta bishu waa 22 July 5 bisha August shirka dhacaya inaad ka soo qayb gashaan si aynu uga xaajoono xaaladda deegaankeena iyo tadalka isbedelada ka bilowday sidii aan ula jaan qaadi lahayn nin walba oo talahaya oo deegaankan u dhashay anoo magacaygu yahay garaad kulmiye garaad maxamed kuna hadlaya odayaasha magacooga waxaan ugu baaqaynaa inay dadka iyagii yimaadaan taladooda ku darsadaan waxaan haynana ay arkaan wixii lagu daray inaan isla aragno dhammaan marka waxaan leenahay inaad shir timaadaan ood sheegtaan iyadoo oon cidna la qasbayn nin walba fikir ku wado aan waxba dhibaato ugu gaadheen ballan qaadaynana nabadgelyadooda iyo nin walba fikir ku wato inuu ka soo jeediyo ayaa waxaan u ballan qaadaynaa inay yimaadaan maalinkaas oo ay u dhaga fududaadaan maanta u baahan yahay deegaankooga in laga taliyo maanta loo baahan yahay in aan ka wada hadallo geedi socodkeenna xaggaan u soconno waad ogtihiin oo isbeddelka Itoobiya ka yimiday deegaan walba tashi buu ku jiraa uu wada tashanayaa si loo adkayn lahaa midnimada Itoobiya si loo adkayn lahaa xuquuq ummad waliba xuquuqday leedahay ay isku mid ka yeelan lahayd macaarid iyo maxaafidba gacanta la iswada haystaa annaguna waxaan rabnaa haddaan nahay odayaashii deegaanka in dadka iyagu uu gacanta isqabsado maanta xilligii aynu ka wada hadlaynay waxa weeye midnimo maanta waxaan ka hadlaynay xilligii iscafiska maanta waxaan ka wada hadlaynaa sidii loo jaan qaadi lahayn dimuqraadiyadda iyo waddanka isbeddelka ka socda marka dhammaantiin waxaan idinku baaqaynaa inaad noogu timaadaan shirkaas ood ka soo qayb gashaan oo aynu wada tashanno wax walba oo laga tashado wixii aynu isla qaadanno aynu ku geedigallo ayaan dhammaan bulshadayada deegaanka joogta ama dibadda joogta meel walbay joogaan toddobada qaaradoodba meeshay ka joogaan inay noo yimaadaan wakhtigaana yimaadaan wada hadallo wada tashanno midnimo iyo muwaafaqo yeelanno ayaan idinku baaqaynaa dhammaantiin baaqa wax kale aan u diraynaa waxa weeye ururka ONLF maadaama waddankuu ka dhacay isbeddel dhammaan ururadii macaaridka ahaa ee hubka watay dhammaantood loo yeedhay laga saaray liiskii argagixisada si ay uga qayb qaataan talada dalka iyo ta deegaankoogaba iyagoo midnimada Soomaaliyeed si loo adkeeyo waxaan walaalahayo ugu baaqaynaa anoo ku hadlaya magaca odayaasha in ay iyaguna ka soo qayb galaan sida ummadaha kale ay macaaridkoogii u soo xaroonayaan iyaguna ay u soo xaroodaan talada dalka iyo ta dadka ta deegaankaba lagama leh in ay walaalnimo iyo xoog nagu soo kordhiyaan inay walaalnimo iyo aqli nagu soo kordhiyaan iyo midnimo Soomaaliyeed ayaan iyagana xaggan uga baaqaynaa